asxaabta kusoo dhawaada Runsheeg Media Network. asxaabay waxaa dowladda Soomaaliya ka gudbiyay dacwad qolada la yiraahdo Strike Diplomacy ama Strike Global Diplomacy. waxaa hogaamiyo ninka la yiraahdo Robert D. Stark. shirkadan waa consulting firm waaye. waxaa loo yaqaanaa Sonogron Policy Group waaye. waa Washington DC based government relations strategic and consulting firm waaye. waa shirkad sharci oo degan Washington DC caasimadda Mareykanka, xiriirna la leh dowladda Mareykanka, kalana shaqeyso arrimaha xiriirada dowladaha, cunaqabateynaha, shakhsiyaadka la doonayo in la bartilmaameedsado, hantida shakhsiga in la xanibo, dabagalka kooxaha rabshadaha sameeya, siyaasiyiinta, ganacsatada, dadka arrimaha bulshada u dhaqaaqa, waxaas oo dhan waa lobbyistic, waa lobby waaye. dadka waa taqaaniin inta badan lobbyist waaye ama qolyaha lobbyga ololeynta ka shaqeeya ee xiriirada iyo iska horkeenka ama dabagalka ka shaqeeya waaye. dhanna waxay ka tahay la talin sharci ay sameysaa, waa consulting firm waaye. marka basekooda Washington DC waaye saan sheegay. ninkaasaa hogaamiyo mataqaanaa the firm operates globally, marka adduunka oo dhan ay ka shaqeysaa, specializing in transactional diplomacy and asset sanctions relief and government and advocacy ay sameysaa. marka waxay ka shaqeysaa diblomaasiyadda transactionalka adduunka, xiriir dowladaha kala duwan. waxay ka shaqeysaa muxuu ahaay waxa la yiraahdo relief sanctions, cunaqabateynaha ay qaadaa. waxay kaloo ka shaqeysaa waxay sameysaa waxa la yiraahdo government advocacy, waxay u ololeysaa dowladaha u ololeysaa. shaqooyinkaasay qabataa marka la fiirsho. iyo waxa la yiraahdo footprint international markets. marka kambaniyada iyo shirkadaha caalamkana waxay u sameysaa waxa la yiraahdo qiimeyn iyo maalgelin iyo sahan ayay u sameysaa. shirkadan marka waa shirkad noocaas ah. waxay ka shaqeysaa marka caawa haddii u baahato inay ka shaqeyso in xiriirka dowladda Mareykanka iyo Soomaaliya in la jaro, haddii ka shaqeyso way ku guuleysanayaan. maxaa yeelay horay ayay dowlado badan u kala jartay xiriirkooda diblomaasiyadeed oo safaaradii u kala qaateen oo diplomatic ties ay kad ugu sameeyeen. marka waa shirkad noocaas ah waaye oo waxaa sameyn karto. Soomaaliya hadda maxaa kusoo beegay waa mowduuc aan rabo inaan ka hadlo waaye. khaasatan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda eedeyn iyo dhaleeceyn kala dul dhaceen. taasna waan isdul istaagi doonaa waxa ay ku saleysan tahay iyo ujeedadoodu waxa ay tahay iyo meesha u socdaan oo biyo dhacooda waan ka hadli doonaa. laakiin marka hore haddaan isla fiirino qolooyinkan Strike Global Diplomacy la yiraahdo ama consulting firmka ah lobbyistayaasha ah, waxay ka mid yihiin shirkadaha Mareykanka kuwa ugu saameynta badan dhanka ololaha. marka la yiraahdo ololaha marka wuxuu isugu jiraa dhowr nooc, kuwa dhaqaale, kuwa siyaasadeed iyo kuwa cunaqabateyn. marka saan idin sheegay haddii ay rabaan inay cunaqabateyn ka qaadaan koox gooni ah waa ay ka qaadaan. haddii rabaan inay koox gooni saaraan ama dal gooni ah way saaraan ama shirkado gooni ah. haddii xiriir laba dowladood ay rabaan inay jaraan way ku guuleystaan, way ka shaqeeyaan. haddii rabaan inay dhisaanna way ka shaqeeyaan. noocaas waay horta. hadda ka hor waxyaabaha hadda ilaa hadda sofa ay sameeyeen ama kiisaska ay handle gareeyeen waxaa kamid ah mudaharaadyo ka dhacay Bangladesh oo ku guuleysteen shakhsiyaad la saaro cunaqabateyn oo dhaqaale iyo mid safar oo travel ban Mareykanka uu saaray in laga qaado, iyo sanction lagu sameeyay in sanctionka laga qaado. way ku guuleysteen. waxay ku guuleysteen oo kaleento Russia kooxa ka jira saas oo kale in laga qaado El Salvador, Kenya, Afghanistan. dadka hadda waxyaabaha aad ku muuqda waxaa kamid ah gabadhii madaxweynaha Angola ee la yiraahdo muxuu ahaay Julia Santos la dhaho. gabadhaas Santos la yiraahdo waxay kusoo rogeen cunaqabateyn asset freezing lagu sameeyay, hantideedii la xanibay.
waxaa lagu sameeyey travel ban, waxaa loo issue gareeyey arrest warrant oo ay u jartay Interpol oo la yidhi meel kastood ku aragtaan way xiri kartaan. ayagii la xiriirtay oo multi-million contract ayaa la gashay heshiis malaayiin doolar ku kacayo ayaa la gashay si ay uga qaadaan cunaqabateynta xagga safarka, hantida loo fasaxo, warrantiga ama issue warrantigan ama arrest warrantiga loo jaray ay u jartay, warranka xiritaanka ay u jartay Interpolne looga qaado. way ku guuleysteen, olole u galeen, lobby u sameeyeen, way ku guuleysteen. waxaa ka mid ah muxuu ahay kiiskan madaxweynihii muxuu ahay hadda ka dhacay Latin America ood ogtihiin in la soo qabtay madaxweynahoodii shidaalkoodina la qaatay waad ogtihiin. marka waxay iskala sameeyaan inta ognahay ama ay kiisaska handalgan waxaa ka mid ah asxaabay Russia, waxaa ka mid ah Kenya arrimo ka jira murano, waxaa ka jira Afghanistan, muxuu ahay Kuwait, Saudi Arabia, waxaa kaloo ka mid ah El Salvador. marka xanaankaasay maraan waxyaabaha runtii ay sameeyaan waxyaabahaas ugu badan inta badan. Soomaaliya hadda maxaa kusoo beegay ayaga hadda Soomaaliya waxay ku andacoonayaan in hanti la lunsaday oo waxay sheegayaan hanti in la lunsaday gargaar bini'aadanimo oo World Food Programka raashin qaar ku jiray. waxay sheegayaan in lacagihii Mareykanka laga dhacay oo Soomaalida Minneapolis oo qolooyinka ICE ay bari dhaxaas ku eedeynayeen in Soomaaliya loo weeciyay oo saraakiil ama government officials Soomaaliya ay isticmaaleen. runtii nasiib darrada jirta waxay tahay Soomaaliya iyo safiirka Soomaaliya ee Washington DC fadhiyo Dahay Carab haddii uu ka hadli lahaa arrimaha Soomaalida ICE-tan iyo waxaan hadda qolooyinkan issue ama kama ay soo saareen ma aragtay muxuu ahay warqad kama soo saareen arrimaha Soomaaliya. maxaa yeelay laakiin safiirkii Dahay Carab ay ka gaabiyay arrimahan. that's why marka hadda ay arrimaha u dhacayaan asiga hadda naftigiisii waxa ku socdo baaris warqad inay ka soo saaraan ay rabaan. asiga naftigiisii ay eedo dusha ka saaraan Dahay Carab yahay waaye ay rabaan. marka diblomaasiyad fashil diblomaasiyad halkaas ka jiro ayaa sababa arrimahan marka runta loo eego taasaana keenayso marka runtii muxuu ahaa inay dhacaan waxaan oo dhan. hadda Soomaaliya marka ujeedada ay u leeyihiin waxay tahay waxaad ogtihiin madaxweynihii Venezuela Nicolas Maduro soo xiritaankiisii inay qayb ka ahaayeen oo ay ka shaqeeyeen oo ay lobby u galeen dowladda Mareykankana ka dhaadhiciyeen, Trumpna ay ku qalqaaliyeen in la soo xiro. waad ogtihiin waxa ku dhacay iyo hanaankii loo maray. haddana waxay ka shaqeeyeen in shirkadihii Mareykanka inay maal gashadaan kheyraadka dalkaas, shidaalkii iyo gaaskii iyo macdintii inay iska qaataan ilaa haddana ayaga iskaga baashaalaya oo iska maamusho oo iska qaato. Soomaaliya marka warqadan waxay kusoo aaday hadda ujeedadooda ay leeyihiin aan sheegaa marka ay ugu dambeyso. ujeedada ugu dambeysay leeyihiin waxay tahay wax kale maahan. maxaa yeelay Soomaaliya waxaad ogtihiin in shidaal loo qodaayo. waxaad ogtihiin ayaan dhaxaasi dowladda in xiriir la gashay khaasatan safiirkan Dahay Carab fadhiyo Mareykanka Washington DC kasoo muuqda xaflad ama heshiis lala galay Virginia qole la yiraahdo companyal Virginia degan duleedka Washington ay ku takhasusay dhanka macdanaha. marka waxa isu soo beegan idin sheegaa marka waxay tahay wax kale maahan. Trump waad ogtihiin oo dhowr jeer ku qayliyo Soomaaliya nabad ma jirto, booliis ma lahan, kala dambeyn ma lahan, amni ma lahan. hadda marka ujeedada loo socdo waxay tahay mar haddii strike global diplomacy meesha soo gashay oo lobbyist ah oo qolooyinkan lobbyga ah ka shaqeeyo ololaha. ujeedadu waxay tahay loo socdo shidaalka Soomaaliya in la qaato iyo kheyraadka Soomaaliya iyo macdinta Soomaaliya. sidee marka loo qaadanayaa loo maraa waxaa loo maraa lacagihii Mareykanka jaaliyadda Soomaalida lagu eedeeyay inay dhaceen. waxaa loo maraa marka dhanka siyaasadda. waxaa loo maraa marka kale ka horeyso in xiriirka diblomaasiyad loo jaro Soomaaliya kadibna la soo galo oo kheyraadkii Soomaaliya lala wareego oo shidaal haddii noqoto, macdan haddii noqoto, gaas haddii noqoto, nooc kasta oo kheyraad ah in lala wareego, kalluun haddii noqoto kulli in lala wareego. taasi marka waxay keenay in la yiraahdo hadda lama maamuli karo Soomaaliya, ma maamuli karto Mareykan oo maal kasta oo qaato. kadib waxaa ku xigay shakhsiyaadka siyaasiyiinta ee Soomaalida asset freezing in lagu sameeyo, hantidoo la xanibo, travel ban la saaro, restrictions dhammaystiran la saaro, movementigooda lala socdo waxaasoo dhan
marka hanaan la rabo kheyraadka Soomaaliya in lagu xalaaleysto waa Turki ma ogyahay mise ma ogo kiis kale waaye waxaan ka hadlaa maalin kale muuqaal kale ka sameyn doonaa laakiin waa arrintii serious ah oo dadka Soomaaliya u baahan inay u sameyso wake up call inay u sameyso oo runtii aad arrintaas isha loogu hayo kiiska xasan sheekh madaxweynaha Soomaaliya ay ku haystaan waa gooni laakiin aniga waxaan ka fiirinaa dhanka kheyraadka Soomaaliya oo runtii loo baneystay oo loo furto wado lagu xalaaleysto ujeedaduna tahay ugu dambeyntii ama ultimate goalka la leeyahay kheyraadkaas in la qaato oo runtii lala wareego gacanta Turkigana lagala wareego Turki raali ma ka yahay arrintan qiimo ka ahay issue kale waa ka hadli doonaa runtii wax badan socdo arrimo badan socdo runtii alla yaabay doontaan Soomaaliya hadda waa loo soo hordhar dhigtay shar hadii joogi jirtay siyaasadda la kala dhexgeli jiray siyaasiyiin loo kala dab qaadi jiray waa la kala shiri jiray shirra lagu yeeri jiray maanta waxay taagan tahay in Soomaaliya farihi la soo galay kheyraadkeedii ee loogu yimid maadaama aan ka faa'iideysan weynay annaga hadda xoog waxayna lagu qaadanayo nasiib darada jirta marka waxay tahay waxa soo dhan yaa suurta geliyay siyaasiyiin Soomaaliyeed oo ka shaqeey waayay inay heshiiyaan oo ka shaqeey waayay dalkan iyo dadkan inay jiha siyaasadeed u jiheeyaan oo ka shaqeey waayay inay xukunka ku heshiiyaan isu tanaasulaan qolobo mar loo dhiibo wada shaqeeyaan ayaa runtii waxay marka horena ka shaqeeyay dhalinyarada Soomaaliyeed isku baabi'iyaan qabiil ahaan isugu diraan dana shakhsi isugu baabi'iyaan maantana runtii dowladihii reer galbeedka khaasatan kuwii u tunka weynay oo super powerka inay maanta awoodii Soomaaliya kheyraadka ay lahayd iyo shidaalkeedii gaaskeedii kalluunkeedii macdinteedii u gacan geliyaan xoog kana looga qaato generation badan oo Soomaaliyeed kheyraadkoodina saas uu ku dhuma runtii oo nasiib darro ay ku dhacdo Soomaaliya ayaga sabab u ahay waxna aysan ka faa'iidin aakhirkana ayaga runtii dhamaantood mid loo ugaarsan doono meel kasta joogaan marka nasiib darro aad weyn waa marka siyaasiyiinta waxaan dhilahay war midooba danta Soomaaliya midooba iska dhaafa tafaraaruqa iska dhaafa lugooyada iska dhaafa kooxeysiga iska dhaafa wax kala jiitanka danta iyo dalka midooba badbaadada dalkan iyo generationska hadda jooga kuwa soo socda iyo kuwa sii socdo ay sii dhali doonaan kuwa soo socdo badbaadadooda laga shaqeeyo natural resources dalka uu leeyahay whether it is maaragtay muxuu ahay gas oil mineral whatever it is in la badbaadiyo ayaa maanta u baahan mataqaanaa dadaal u baahan dadaalkaas la geliyo haddaan la gelin gacantay ka baxday Soomaaliya iyadoo loo jeedo oo gaajo iyo abaar iyo daadad iyo macluul iyo wax kasto siyaasad xumo muxuu ahay dhibaato kasto ay haysato ayaa kheyraadkeediina la iska maamulo doonaa kambaniyo iyo reer galbeedna ay u tashan doonaan laga macaashi doonaa laga dhargi doonaa adna aad ka baahnaa doontaa ha ogaaw xukunkan aad ka baahnaa doontaa kheyraadkan aad ka baahnaa doontaa maanta marka waxaan joognaa meel aan iska daba qaban karno maanta waxaan joognaa meel aan badbaadi karno aan badbaadino u istaagno kheyraadka dalkeena aniga I don't care siyaasadda cidda isku hayso shakhsiga issue warrant loo soo jaro ama arrest warrant I don't care waxa aniga aan u jeedo waxay tahay kheyraadkaas la boobayo macdintaas la guranayo ayaan u jeedaa marka taas aan nooga baahan badbaado taas aan badbaadino Soomaaliya haddaan taas badbaadino Soomaaliya faraha ka baxee allo waxa waaye ilaahay u naxariisto ay taagan tahay Soomaaliya maanta iskoosii taagan tahay intaysan dhiman aan badbaadino haddii aan ogolaanay inay dhimatane waa si u dhimatay ogaada gacmaheena ka baxday Soomaali iyo kheyraadaan leenahay iyo badaan leenahay iyo kalluunaan leenahay iyo badda ugu dheer Afrikaan leenahay iyo macdanaan leenahay filinkoodii ay cunalkaas ku dhamaatay intaasaan idin leeyahay aniga asxaabay hawshaga dadka cusubtiin subscribe gareeya aragtidiina ila wadaaga qaybta hoose commentiga inta aan muuqaalku isku arki doono waxaan idin rajeynaa kheyr caafimaad bye bye